Ja, cirka halvparten så morsom som har skjedd. sida xaashi khatar u yihiin waan ka yara hooseeyaa Men han er cirka 1000 ganger flinkere til å fortelle vitser enn meg. waxoogaa waan ka dheerahay laakiin dheer ma aha buudiye wiga aftahansan yahay Så jeg tar ikke sjansen på å dra noen vits. marka inuu la tartamo isku dayi maayo Så. aye Veldig hyggelig at vi har fått i stand etablererkurs på Somali. aad bay u fiican tahay inaan ku guulaysanay kooraskiina af soomaaliga u rogno Vi gjør dette i Oslo kommune degmada Oslo ayaa waxaan ka mas-uula fordi vi har tro på at blant dere somaliere waanu idinku kalsoonahay marka aad soomaalida tihiin waan ognahay inaad wax samayn kartaan så finnes det personer som vil lykkes med egen bedrift. waxaa ku jira dad badan oo aan hubno inay ku guulaysan doonaan ganacsi gaar ah Så dette er ett av våre tilbud. kuwani waa fursadahan bixino mid ka mid ah Som Horshi sikkert har sagt, siduu xaashibo idiin sheegay waan filayaa så tilbyr vi også individuell veiledning. waxaanu bixinaa talo iyo tusaale qof haddiina loogu yimaado Men det vi krever da, laakiin waxaanu idinka rabnaa marka hore er at dere må fylle ut en forretningsplan. qorsho ganacsi oo diyaara waa inaad wadataan Ikke vær redd. ha ka cabsoonina inaad nala soo xidhaan Vi forventer ikke at du har en businessutdannelse. inaad cilmi badan oo bacshari ku saabsan leedahay kama sugayno Ja. Men det er et papir på vårt nettsted. laakiin waxaa jirta xaashi amba waraaq ku jirta website-keega Som du kan laste ned. taas waad soo dejisan På kartaa 2 enkle sider. laba bog oo qura bay ka koobanta gebigeeda Med 7 enkle spørsmål. 7 su-aalood oo fudud ayaa ku yaala Så vi vil helst at dere må ikke skrive perfekt norsk. af norweji khatara inaad ku qortaan uma baahno Eller engelsk. ama ingiriisi khatar Som dere sikkert skjønner, så det er ingen hos oss som kan somali. sidaad la socotaan ba inta meesha ka shaqaysaa kuma jiraan wax soomaali ku hadlaa Så vi må dessverre svare på å snakke med dere på enten norsk eller engelsk. waan ka xunnahay waxay noqonaysaa inaanu ama markaad noo timaadana af norweji ku wada hadallo ama af ingiriisi Nå husker jeg ikke fra første kvelden hvordan somalsk kultur er i forhold til klapping. maalintii ugu horreysay ma hubo dhaqankiinu waxa uu ka sheegayo sacab garaacista ama sacab tumista Men ifølge min kultur og min personlighet, laakiin haddaan ka duulo dhaqankayga iyo qof ahaantayda så må jeg bare anbefale dere på det sterkeste waxaan idinkula talinayaa taladaydii ugu adkayd å gi en saftig applaus for Horshi, som gjør en strålende jobb. in ninka xaashi la yidhaha sacabka loo garaaco sidaad u iibinaysid markaad xayeysiinaysid wixii horta markii hore wixii baad sheegaysaa waa maxay waa adeeg nijaar adeegii nijaarkaas sharaxaysaa waa farsamo cusub garanaas sidaasaad u kala dhigdhigaysaa qaabka waxa uu yahay waa farsamo cusub faa'iidooyinka uu leeyahay hawl fududayn magaraas waa hawl fududayn kabacdi waxa lagu arkay dawada dumarku ismariyaan dee waa inaad gabadhii ka dhaadhiciso inay ku caddaanayso dawada hadday kaa iibsato wixii lagu arkay ood u sheegaysaa u soo bandhigaysa waa haddana wuxuu kuuli waa raqiis dee isagoo wiba dadka u isticmaalaysaa marka ka iibinayso okay waa qorshihii sixirka marka hore waxaad iska baadhaysaa sixirka dadka kula dukaamada ahi inta ay siinayaan shaarka intay ku iibinayaan macalusta intay ku iibinayaan halkaasaad ka duulaysaa dabeedna waxaad samaynaysaa qiimo dejinta waxaad cilmi baadhis baad samaynaysaa qiimaha ku saabsan qiimo guud ayaad samayn kartaa marka dukaan leedahay haddaad doonto diraca shalmada khamaarka gaargaarmada iibinaysa haddii kalena qiimaad u samayn kartaa diraca shalmada iyo khamaarka oo wada socda intaasaan isku siinayaa 100 haddii kalena mid kasta 50 karoonkiisa markaa si saxa aad qofkii fariinta u gaarsiisay markaa waxaad qeexaysaa dadka aad rabtay inaad gaadho ma soomaalida ma norwejiba ma markaa sidaas ubaad ku gaarsiin kartaa tuusankii
حاجة ليفيا كرسونية بقى ما نبتوسن وح أي أرسين إن كان عرب كمان واحد عايز يجينا يو أما واحد أما سووا خيامان كرسونية ما قبان أجنبي نبتوسن كاس أي يو آمنين آمنات كلام ما هي هو كسبضي وهو حقيقي يعني خيامين سيد الدهونو حقوق الجيو أما هذا دون حيرها استعماله أما فرسمة كله هذا دونه خيامين يا لكن ما فيها سنين خيامين يو مركا كرسوني دودي وهايستا ساسا لو يقولون يا رمتوس وليجاب عرب كتب وليجاب صومالي كتب وليجاب مكوسو لحن ما يعني ورمتوس كاي جرني أمير يا هي وليجي كده ولا كرسوني هو شيء مهم وأمير يو وحن خصوصا horta yaraanta qofku markuu wax ku soo maro caruurta iska waxay moodeen ay caruurtu waxba ay dhowdo ama waxa xasta yaraantaydii meel waraabay tuulo la yiraahdo dukaan ku lahayd aabahay yaa u dabeecad darafsan buu ahaa dukaanka isaga aadee hadduu qof u soo galo wuxuu odhan jiray waa masaa kiilooga sokorti waa 20 shilin wax ma iga daynaysaa waa muxuu ahaa bax naga bax walaalaasa geemigiisu wada aad soo aygaasay ahay تبدو حسنين شيء مباح سويديا أبغى هذه السوق لوجي بسنجري هذا أعرف عين كاسة هذا ما عميش يقول لك كتبان هيجينا نقول كده بيجي يمكن لو بدي يكون يو طبعا كي طبعا عدم دخل الجو هي سيئة ودخل الجواز سيئة لكن حدنا هتتبع المشتري تاعي كل ما الدبعات هات مر لي بقى وارد تقطعوا كودو قاعدين لكن مرور بحث هذا كودو قاعدين أيام وديوها كل بسلم بيرجع تقوى إلى المسنايا ما كانوا كرسونين هذا وقفوا المسنايا وحنا كاي بسلم تبعات كل هذا تهدو المسنايا وقفوا من خيامين أما واحد سيخ هذا يسوق عمرين يسوق كامل المسنايا هذا بس كده تبعات هم بعدنا كاي بسلم تعبها ولا هي بسلم شريوه وإن الحبيب كفي عم تحي وإن شو في عم أبوته وكده كان بسوق على أوكي في فرعوني وقف هذا فريادوني سلوين مع بيجا ولا كل يقول كيف فريدو مع ولا كيف الشمسون ولا ولا كعلى أي مع وين الوشة يسوي حسينا يقولون وحكاية سلو لكن مركز قاب كافي عن وجه هذا شو في عن أبورتي يروح يروح شغل سلو ورد ما جنبه تقول كذا كلها شيء كقاب مركز وقاف كا قف ودور سوق مولوجيسا waxa laga yaabaa inuu ku soo noqdo islaamiyo qalaad dib u basay shirbiyaha oo sinna u tagninkii marka jawi noocaas oo la waqti markay dadku ku soo galaan wada hadalka iibka qosolku waa qayb dhan oo kamid ah mushtariga hadii aan qosli karin waxay isugu dhawaan dukaan waayo way dadku way rabaan inaad magaraas marka dee waxaan waa وقيب لنا وكمدا قاب روح لو قلت لك شكلها الويتشيكا إن وقفوا لنا مركور هاي كبروا مركور مجراس ما اللي حاول قبل هذا السلام كبروا كعنقات يوحي دعاي إلا حتى مركز سؤالي يروح كومن ما سود ياري كوي مكان دي شيء يوكله أيها هرم فايا ده أنا كيف شو بدون ما في لي عاشق أيه كورسدن iyo waxaad ka faa'iideeyay magacaaga noo sheeg aniga waxaa la dhahaa Cabdirasaaq Xasan Koofi dadka waxaan ka mid ahay ka baranayo meeshan koorsadaan oo ganacsiga waxa ugu faa'iidada badan aan ka faa'iido waxay ka mid tahay in aan ogaaday qataraha ay leeyihiin iskaadka canshuuraadka la jaro iyo sida loola dhaqmo dadka oo customerka loo yaqaano macaamiishaade taasa ugu muhiimsan koorsadan maxaad calow ka faa'iiday ugu weyn wax ugu weyn wax badan oo aanan markii hore aqoon u lahayn oo yani markaad timaado waddanka Norway systemkiisa sharciyadiisa wax badan kulleyba inaad ogaato haddii aad doonayso waddanka inaad sii deganaato waan ka mid noqon kartaa dadka yani businesska wax ku yeeshay marka adiga oo markaad matalan koorsadan qaadato adiga oo wax ku bilaaban yihiin دواد تاس فائدة صدق سعودي أقون أنت لك بتكفايدي والله وحياة بدنا آدي أدور أنا دوني يبان كفايدي
maxaa ka mid ah waxyaalaad ka faa'iiday waxaan ka faa'iiday oo kale qaabka xisaabaadka loo maaraynayo iyo sida warqadaha loo xifdinayo oo dee awal warqadaha meel baan iskaga tuuri jirnay wax micnaa nooma lahayn laakiin hadda si micno leh baan u arkay sida loo xifdinayo meel loo dhigayo iyo sida loo aruurinayaba ma kula tahay in xirfadaada ganacsi ee doonaysa inaad samayso inay wax weyn ka tari doonto mustaqbalka koorsadani absolute waxa weeye wax weyn bay iga taraysaa mustaqbalka iyo inaan dad uga sii faa'iideeyo waxaan maanta meeshaan ka bartay oo khibrada inaan dhaho waxyaalaha khaladaadka markaan u arko kale inaan kala taliyo aan dhaho war sidaa ka daaya sidaas sameeya aad baad umadsantay aqoon intee leeg ayaad ka faa'iiday adoo magacaaga noogu bilaabaya marka hore bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa jawaar maxamed qanyare wax badanaa laga faa'iidaystay waxyaabo badan oo aad rabtay inaad weydiisid oo luqadii kugu adkeed afkaaga hooya looga cilbaxay yacni wax afkaaga hooya ku fahamta wax ka wanaagsan male wax kasta waa fahnay meeshaan caawinaadda ka doonan lahayn waa ognahay sidii aan wax u maamulnayn waa fahnay hadda aad baad umahadsantay jawaahir magacayga waa caasho shariifa laydhahaa halkan waxaan u imid maaragtay waxaan leeyahay meel acupuncture oo health center ah waxaan u imid inaan ka faa'iidaysto maaragtay regniskaabka waxa uu yahay macnihiisa iyo xisaabaadka marka wax badan ayaan ka faa'iiday oo luqadda maaragtay lagu sharaxayo iyadoo English aan hadda kor ka qayb galay laakiin maanta waxay ka fiicneed ma lahan saddexda qaybood ee la yidhi shirkadaha ayaa ugu habboon in loo diiwaan gashan karo teebaa ku anfacaysa u malaynaysaa soomaalida si maxaad kula talinaysaa waxaan u malaynayaa waxaa anfacaysa maaragtay tan ay dadka isu tagaan maxaa yeelay tan saamiga oo dadka isu tagaan wax ka fiican male maxaad xaq u yeelanaysaa daagbengar oo dawladda xaq baad ku yeelanaya laakiin tan oo keliga waxba tan aniga hadda leeyahay camal wax faa'iido ma lahan maxaa yeelay dawladdu baad u shaqaynaysaa adiga daagbengar ma lihid xaq ma lihid haddaad maanta dukaankaaga ama meeshii ganacsiga aad xirtid kow baad kasoo bilaabay nolosha haddana walaalaha Soomaaliyeed maxaad kula talinaysaa waxaan kula talinayaa inay gacmaha isqabsadaan oo maaragtay wax qiimo leh ay Norway ka qabsadaan oo businesskan kaliga iyo waxyaabaha isku midka ay wada keenayaan inay ka duwan oo wax maaragtay macquul ah oo ilmaheena iyo dadkeena anfacaya ay qabtaan looga aayo noo sheeg walaal waad mahadsantahay magacaygu waa Leyla Maxamuud Qanyare Leyla saddexdii habeeneed aad koorsadan dhiganaysay maxaad u malaynaysaa inaad ka faa'iiday wax badan baa laga faa'iiday sida runta ah ganacsiga iyo sida maaragtay loo suuq geeyo iyo sida lagu bilaabo intaba waa laga faa'iidaystay macalinka dhigayna wuxuu ahaa runtii macallin u tababaran inuu dadka wax fahansiiyo qaabkan aad leedahay ganacsigaagu wuu ku habboon yahay qaabkeed u malaynaysaa saddexdii qaab ee la sharaxay qaabka qofka keligiis inuu leeyahay ganacsigu uu samaysto oo keliga ah kaasaan u malaynaya kaasaan rabaa haddii la yidhaah waad mahadsantay Leyla magacaaga noogu bilow macallin magacayga haddaan ku bilaabo waxa weeye Mustafa Yuusuf Xaashi magacii rasmiga ahaa waxaa kaloo jirta naanays laga qariyo Arnab ama Bakayle ayaa iminka koorsadani socotay caaway la soo gunaanaday maxaad u malaynaysaa inay ardaydaadu ay ka faa'iideen waxaan u malaynayaa ardaydeedu inay ka faa'iideen waxa weeye ganacsiga halka Norway iyo ganacsigii waddankeenu wuu kala gedisan yahay qofka hadduu doonayo ganacsiga Norway ka samaysto waa inuu ku saleeyo shuruucda iyo nidaamka ka jira Norway shuruucda iyo nidaamka Norway ka jira way qarsoon yihiin sida lagu helo ayaa adag marka kooraskan waxaan ku soo bandhignay wixii sharciga iyo nidaam ee la waafajinayo ganacsiga Norway taas ayay ka faa'iideen dad badan imika dad badan waxaan rajaynayaa in ay heleen ama ay fikrad ka qaateen qaabka loogu talagalay in loo maamulo ganacsiga Norway Soomaali badan baa dukaamo iyo meherado badan ku leh magaalada Oslo ee Norway iyo waddanka guud ahaanba ma kula talinaysaa inay ururo ay iyagu leeyihiin ay samaystaan maadaama aanay ururba ku jirin ganacsiga Norway siduu u badan yahay ganacsigan urur lahayn ma jiro haddii aanad ku jirin urur ganacsi oo Norwegia inaad urur kala samaysataan idinkun baa ku faa'iidaya markaad is urursataan ee urur noqotaan
cod badan ayaad yeelanaysaa dad badan ayaad noqonaysaan karti badan ayaad yeelanaysaa codkiina la dhegaysanayaa marka absolute waan kula talin lahaa in ay isurursato oo urur samaysato oo ay si codkoodu loo maqlo iyagana koorsadan mid lamida ma ku tala jirtaan inaad dhowaan samaysaan kooraskan sanadkii hore ayaanu qabanay dad badan baa ka soo qayb galay kabacdi waxaanu samaynay baadhitaan in baahi loo qabo taasaa kaliftay inaanu mar labaad ku soo celino imika waxaanu samaynaynaa kooraska mar hadduu dhammaaday qiimeyn baan ku samaynaynaa waxaanu eegaynaa baahida loo qabo haddii aanu aragno in baahidii weli halkii taallo waanu ku soo celinaynaa waad mahadsantahay Mustafa adigaa mudan